taliyaha guud ee ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland sareeya Gaasnuux Ismaaciil Taani oo ay weheliyaan taliyayaasha ciidamada bilayska asluubta badda iyo madaxtooyada ayaa tababar muddo 6 bilood ah loogu leelinayay sarkaalnimo qaar kamid ah ciidamada qaranka bilayska iyo madaxtooyada ugu soo xidhay kuliyadda tababarka saraakiisha ee Cabdilaahi Askar ugu horeyna waxa madashan ka hadlay oo ka warbixiyay kuliyadan iyo ciidankan muddada 6 bilood ah loo leelinayay sarkaalnimada taliyaha kuliyadani Cabdilaahi Askar gaashaanle sare Xasan Cabdi Yuusuf iyo hogaanka tababarada ee kuliyadani sareeyo guuto Axmed Cali Maxamed hadaladoodina waxa kamid ahaa ciidanka qaranka 1994 ayaa la aasaasay wuxuu dhalay dugsi dablay jidid iyo dablay wuxuu dhalay dugsi dhexe oo saraakiil xigeenka ka bacdina wuxuu dhalay kuliyadan ayaa dabeetana aasaasantay kuliyadan oo ka dhaxaysa afarta ciidan qaran iyo ciidanka madaxtooyada waxay soo saartay koorsooyin dhan tan ugu dambayso oo ay tahay tii shanaad weeyaan koorsadan oo la baxday magaceedu uu yahay koorskan wuxuu socday tababarkan wuxuu socday muddo 6 bilood muddada 6 bilood waxa la qaatay 1248 saacadood oo waxbarasho in saraakiisha la baro qaabka habboon ee hogaaminta colalka in kor lagu qaado aqoonta saraakiisha si ay awood u helaan inay si kalsooni leh u fuliyaan waajibaadkooda taliyanimo taliyaha guud ee ciidanka bilayska Soomaaliland sareeyo guuto Cabdilaahi Fadal Iimaan iyo taliyaha ciidanka madaxtooyada Soomaaliland sareeyo guuto Cabdirasaaq Saciid Bulaale ayaa iyaguna ciidankan loo carbiyay sarkaalnimada kula dardaarmay in aqoontii ay kuliyadani ka kasbadeen ku dabaqaan hawlaha ay qarankan u hayaan waxaana si isku mid ah u hambalyeeyeen saraakiishani maanta tababarka loo soo xidhay waxaan u mahad celinayaa taliyaha ciidanka qaranka oo waxay tababarka waxa halkan faa'iidada koobaad ee ku jirta waxa weeye iyagoo ciidamada qalabka sida mid ah in haddana ay isdhex galaan oo waxyaalaha gaarka oo ciidan walba ay ku kala faa'iideystaan intay ku jiraan kuliyadda midda kale cadaaladda kuliyadda koow taliyaha ciidanka qaranka iyo taliyaha dugsiga oo ku amaliyeen iyagana sababtoo waxa muujinaysa cadaaladda taala sanadkii hore bilayska ugu horeeyay sanadkana waxa ugu horeeya ciidanka ilaalada madaxtooyada halka maxaa ka muuqata si feer oo cadaalad imtixaanka loo qaado waan ku amaliyeen taliyaha ciidanka qaranka hogaanka tababarka iyo taliyaha dugsiga in ciidanka anigu maanta aan taliyaha u ahay 27 sargaal ee kaga jira koorsada shanaad ay mutaysteen ama ay keeneen ama ay ku sifoobeen ama ay ku guuleysteen inay galaan kaalinta koowaad iyo labaad iyo saddexaadba aad baan ugu hambalyeeynaa koorsado dhan gaar ahaanna waxaan ku hambalyeeynaa kuwa kaalinta koowaad iyo labaad iyo saddexaad ilaa 10 ka horeeya taliyaha guud ee ciidamada qaranka Soomaaliland sareeya Gaasnuux Ismaaciil Taani oo soo afmeeray munaasabadani ayaa ka sheekeeyay sooyaalkii taariikheed ay soo martay kuliyadan tababarka saraakiishu iyo halka ay maanta marayso isagoo dhanka kalena ciidanka u soo jeediyay inaanay ku milmin asxaabta loolamaysa iyo waqtigan campaign-ka lagu jiro maadaama ayuu yiri ay ummadda dhex u yihiin hadaladiisina waxa kamid ahaa waxaan tagay Madheera marka waxa la dhisayay guryo yar yar oo gaagaaban oo la lahaa leeyahay saraakiil baa loo dhisayaa dugsiga maaha laakiin kuliyadda la dhisayay nafteedu waxay jeclaysatay inaan taasoo kala yeelano waxna maanaan hayn haabka lacagna maanaan hayn haabkan meel wax ka helana maanaan garanayn maalmaha ka mid ah halkan kuliyadda nimid halkan waxay ahaan jirtay xeradii guutada taangiga
nin korneyl oo military ataajihayo Rooney la oran jiray oo haddana uu nool yahay wadankeena u yimaadaa ayaa baan helay ninkii baan la soo hadal qaadnaanay hoggaanka tababarka kulliyad ilaahay qudradii uu ilaahay u noo fududeeyay 2008 baan dhagax dhignay kulliyadan 2010 way dhamaatay xaq baa u leeyahay nin walba xisbigu doonay inuu nagu rido laakiin xaq uma leedin in sidii rawaadu ay sheegaysay ninna inuu xisbi walaaleeyo innaga xaakimkiya madaxweynuhu waxa weeye taliye ciidamada oo dhan weeye innaga iyo commission-kuna aynaguna amnigii baan haynaa commission-kuna cadaaladii bay hayaan gabagabadii taliyaha guud ee ciidanka qaranka jamhuuriyaddani Soomaaliland sareeye gaas Nuux Ismaaciil Taani iyo taliyaha ciidanka Bileyska Soomaaliland sareeye guud Cabdilaahi Fadal Iimaan ayaa halkaasi abaalmarin ku gudoonsiiyay saraakiishii ugu sareysay tababarkani dufcadani maanta halkani ka qalin jabisay ayaa noqonaysa dufcadii shanaad ee ka baxda kulliyadda tababarka saraakiisha ee Darweyne waa Jamaal Axmed Naasir iyo Cabdi Cumar Jibriil telefishanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland Darweyne